Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka James Production. Maanta waxaan baran doonaa galaaskeenna ugu horreeyay ee Hindiga. Waxaan baran doonaa erayo fudud. Waxaan ku baran doonaa luqadda afka Soomaaliga haddii Ilaahay yiraahdo. Insha Allah haddaad channelka cusub tahay subscribe saar. Videoga hadduu ku xiiso geliyo like saar. Haddaad su'aal qabtid insha Allah commentiga ku reeb haddii Ilaahay yiraahdo, halkaas ayaan kaaga soo jawaabi doonaa. Maanta waxaan baran doonaa erayo fudud sidaad ciwaanka uga jeedadba. Waa eray iska fudud una ka bilaaban doono basiga Hindiga. Marka insha Allah casharkeena ayaan guda galaynaa. Aniga af Hindi waxaa lagu dhahaa me. Aniga me. Annaga ham. Adiga markaad dhehaysid laba qaabood baa loo isticmaalaa ama saddex qaabood. Tu waa ciyaalka yararka ah markaad isticmaalaysid. Tum waa qofka aad ciyaalka ka weyn laakiin dadka waaweyn aanan gaarin. Tum baa u isticmaalaysaa. Ab waa dadka waaweyn oo sida dadka aad xushmeynaysid oo kale ah baa ab loo isticmaalaa. Marka waa tu, tum, ab waa adiga. Isaga iyo iyada iyo kan ama waxan waxaa loo isticmaalaa waa isku mid. Isku si ayaan loo isticmaalaa waa ye, wo. Ye, wo. Ye iyo wo waxaa loo kala isticmaalaa tusaale ahaan saaxiibka kuu dhow oo kale. Qofka markuu kuu dhow yahay ama wixii kuu dhow oo kale waxaa u isticmaalaysaa ye. Wixii kaa fogna wo. Wo waa u isticmaalaysaa wixii kaa fog. Markaad leedahay oo kale kani waa saaxiibkay, ye baa isticmaalaysaa. Ye mera friend hai. Kaas kaa fogna markaad rabtid inaad isticmaashid waxaa isticmaalaysaa wo. Marka saddexdoodu waa isku macne laakiin sida loo kala isticmaalayo bay kala duwan tahay. Kii kuu dhow iyo kii kaa fog. Marka isaga iyo iyada waa isku mid. Isku qaab baa loo dhahayaa marka iyada iyo isaga. Qofka ninka ama qofka dumarka ah. Isku si ayaa loo leeyahay. Ha waa ha. Maya nahi. Kaalay ao ama aaye. Ao waxaa la dhahaa qofkaadan xushmeyn u hayn sida qofka kaa yar oo kale ama ciyaalka yararka oo kale. Ao aaye qofka markuu qof weyn yahay aadna xushmeynaysid aaye Allah kaalay. Bax chao ama chaiye waa sidoo kale waa xushmad la'aan iyo inaad qofka xushmeynayn iyo inaad qofka xushmaysid. Chao ciyaalka yararka la dhahaa. Chaiye qofka weyn aad xushmeynaysid baa la dhahaa. Soco ama socod. Cholo ama chaliye. Soco sidoo kale ayadana ayaa loo isticmaalayaa. Cholo ama chaliye. Fadhiiso baydho. Baydhiye waa sidoo kale ayadana xushmad qofka aad xushmeynaysid ama kaa weyn oo kale. Baydhiye ayaa leedahay. Maxaa kiya. Waa markaad isticmaalaysid waa waxaa isticmaalaysaa ha, he ama hee baa u isticmaalaysaa. Marka waa magaciigu waa markaad dhahaysid mera naam Ali hai. Heedaas marka gadaal bay tegaysaa. Waa magaciigu waa baad leedahay moogtahay. Marka heedaas gadaal bay tegi doontaa sida luqadda markaad isticmaalaysid oo kale. Waxaaga tumhara abka ama tumhara. Tumhara waa sidii haddaay oo kale aan ku soo aragnay qofka markii aadan xushmeynayn oo kale inaad tumhara tiraahdid. Waxaaga camal ama tumhara naam kiya hai magacaa. Qofka markaa xushmeynaysid oo kale ama uu kaa weyn yahay waxaa leedahay abka naam kiya hai. Abka naam kiya hai magacaagu waa maxay? Marka waa waxaaga. Magac naam
magac markaa leeyda waa naam. waxayga waa meeraa. waxayga meeraa. meeraa naam magacaygu Ali है. मेरा नाम Ali है. magacaygu waa Ali. marka meeraa waa waxayga. mahadsanid waxaa lagu dhahaa Dhanyavad. mahadsanid Dhanyavad. Dhanyavad. insha Allah galaaskeena maanta halkaas uu ku egyahay. kan waa galaaska ugu horeeyay. insha Allah galaasyada soo socda si aad ugu taxano u noqotid ama ula socotid subscribe saar gambaleelka saaro insha Allah like na saar. mahadsanidin. assalaamu calaykum.